taas oo bixisa adeegyada tiknoolajiyadda casriga ah. wariyaha v o a barkad maxamuud kaariye ayaa axmed kula kulmay hargeysa. ugu horreyna waxa uu weydiiyey sababta fikirkan ku dhalisay. kulmi markaan arka baahiyaha dalka loo qabo islamarkaana aan aqoon u leeyahay si fiican la bulshada lagu soo degin karo wixii adeega service ay u baahan yihiin oo aan ka qabtiri karo. markaasaa fikirka igu dhaliyay inaan sameeyo shirkadan. hadii jeer dadka qaar waxaa la aaminsan yahay qofka haddana dibadda wax kasoo baran oo aanu jaamacadda lagu bixinaynin dibadkeena inta badan inaan waxba samayn karaynin. okay barka waa su-aal aad u wanaagsan oo jeclaa inaan wax badan aan usoo bandhigo dhalinyarada caqabadaha ka haysta in ay shaqo helaan. waxa weeyaan hordoorka shaqa way taallaa weel buuxda. aniga laftigeygaas waxay siiyey shaqaale inay lamuqraan technology ay ka shaqeeyaan. waxa weeyaan dhalinyarada waxay ka oranayaan maadaama aan shaqada si laga qaadano mushaar qaad aan qaadano marka bro waxa weeyaan qofkii volunteerku ma soo shaqaynin. marka volunteer waa amnist inuu noqdaa 2 sano macna waxaan leedahay dhalinyartu halka shaqada markaaba laga doonayo mushaar inta hore lagu shaqeeyo qofkii oo si uu helo khibrad. hadduu khibraddaa helo waxa weeyaan waxyaaba badan boo furfurmaya. wuxuu tusaya jidkii uu ku shaqaysanaya, wuxuu tusaya jidkii uu ku helaa lacag inuu maal gashado shaqada inuu furto. macnuhu arkaya si loo shaqeeyo maamulkii ayaa wuxuu ka helaya aqoontiisii. dadka doonaya dhalinyarada jaamacad ka baxay sidoodan oo kale doonaya in shaqa uu qabo hase ahaatee shaqadii aanay u muuqanin. dhalinyar badan waxa ku doodaya dadka shaqa ma jirto. horta dadka shaqa way taallaa. shaqada waxaan dhalinyarada in lagu dhiirigeliyaa in ay shaqo iyagu abuuran karaan. waxaan ganacsataan arkeyna iyo shirkadaba waxaa lagu aasaasay wax la yidhahdo small business management ganacsi yar ayaa lagu abuuray. marka ganacsigeeda waxay si roon la yeeshaa barnaamijka dhalinyarada isla waxay doonayaan inay one day maalin inay ku taajiraan oo marka ganacsiga abuuraan inay dallacaan wixii ay soo bandhigayeen. marka dalku shaqo way taallaa. waxa weeyaan jidkii ay ku mari lahayn dhalinyaradii ayaa loo tilmaamayn oo waxa weeyaan qof walba wuxuu doonaya inuu kursi ku fadhiisto. dalka gudihiisa kama bixinayd halkan wax ku barato. sidaad ii sheegtay maanta waxaad maamushaa shirkadan farsamada casriga ama technologyga la yidhaahdo lama huraan. aniga maxaa kuu fududeeyey kula tahay? waxaa ii fududeeyey marka la soo geeyo 7 sano soo shaqaynayay. markaasaa tallaabooyinka maraysa horaba dhaafi kartaa. kadibba markaan gudaha sii gala enjoyay shirkadihii mar qura ma afkayga lagama maqal waxaa la sii waysan mushaar. taasi waxaan tixgelinay inaan helo warqad aan ku jid maro horumarkayga cilmigayga halkan iibsanayo inaan warqaddaa helo. waxaa dhici karta anigu dadka qaar inaanay fikro badan ay hayaan laakiin dhaqaalihi aan haynin. si qofku ganacsi u abuuro soo uma baahna dhaqaale naftiisu tixgelin. dhaqaale waa loo baahan yahay. waxaa loo abuuri karaa dhaqaalaha marka ganacsiga waa marka hore aad lacag yar ku bilowda. hadda laakiin lacag badan raadisi inaad ku bilowdid ganacsigaas ma socon. anigu waxaan arkay qaar aan saaxiibada oo yidhi waxaan noqon doono waan ka baqayna inaan ganacsi yar abuurna. marka dadka ganacsigu baqashada soo gasho lama abuuri kara ganacsi. door macnaamay khibradu ka qaadanaysa marka dhalinyartu inay abuurto shaqo amaba ay abuurtaan waxaad meel ay ka shaqeeyaan door muhiim ay ku leedahay. kow waxa weeyaan qofka wuxuu u horseedaya inuu helo inuu shaqa uu abuuran karo. waxa kaloo helaya in uu noqdo qof mas-uulo oo muto karo oo shaqayn kara. marka kow waxa weeyaan maalintirka ninka uu shaqeeyey maamulka shirkadda uu shaqeeyey wuxuu ka arkay dabeecadaha si uu kula shaqeeyey. sidoo kale wuxuu baranaya shaqaalaha habkay u shaqeeyaan. sidoo kale wuxuu helayaa jid in la aamini karo qofka. marka aaminada ninka haddaan doonayo inaan dharo furto dee qofka guuli karna wax weeyaan asiya sheega kadibna wuu la soo celinayaa markaan lacagta helo. wuxuu samayn karaa inuu meel walba uu helo inuu volunteer ku shaqeeyo ama ha noqdo shirkadiya ama ha noqdo enjoyer. marka adigada qabato waxaa kamid a dhismaha websiteda iyo teknolojiyadan carabiga computerada inay iibisaan. sidoo kale saad ii sheegtay xalinta iyo cilmisaaridda computerada iyo telefoonada iyo dhammaan agabka technolojiga ah waqtiyada la isticmaalo. imise shaqaalaha la isugeyn aad kaga shaqaysaan? waxaa shaqeeya laba inan baa shaqeeya. marka labadana naa shiftiga bil hore kii dambe anigana waxaan qaabsanay wixii dibadda marketingki maadaama 7 sano suuqa ku jiray in aan maclin macaamiishii shirkad ku soo xiro. taasi waxay caawisay shaqaalihii aan soo hayn jiray dad badan bay soo barto waayaa adduunkay soo barto waxyaaba badan aan soo arkay. marka waxaa in aan dadkii ku soo xiro shirkadii halkeed ka soo bilowda nolosha maanta halkeed maraysaa ilaa shaqaale gelinta shaqaalaha markaad suuqayso. maasha allah noloshayda horta waxaan kasoo bilaabay dadaal waxbarasha. noloshayda imika waxay maraysaa dee amir waad aragtaa inaan maalinta shirkadda mulkiiladda loo noqday. maalintii aad shirkadda markaa aasaastay dhibaato
shaqaalaha u gala sidaad ii sheegtay wada xayeysiisay warbaahintaad marisay qof shaqaalaha midad shaqaalaha u baahantay dareenkaaga siduu ahaa wallahi markaan soo xayeysiiyey shaqada waxaa soo xasuustay markaan la soo xayeysiin jiray shaqooyinka oran jiray shaqa loo baahan yahay qofka shaqaalaha ayaa soo xasuustay anigu shirkadii lasoo xayeysiin jiray anuu noqdo maanta oo dhalinyarada soo bandhigo marka dareenkayga aad buu sareeyay maanta kaasi waxaa ahaa axmed xasan yuusuf oo hargeysa ugu wareegay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye